kan ugu runsan hantida. Tani waa sheeko ku saabsan aabe iyo wiilkiisa. Waa ayaa jira nin aad u hanti badnaa oo safar u baxay asiga iyo wiilkiisa. Waxa uuna doonayay inuu tusiyo wiilkiisa sida faqiirku u nool yahay. Markaa faqiirintii waxay ku noolaayeen xishood. Markii ay u soo laabteen magaalada, ninkii waxa uu weydiiyey wiilkiisa, sidee buu kula ahaa safarkeena wiilkaygiyo? Wiilkii ayaa ugu jawaabay, aad bay u fiicneed aabe. Marka maxaad ka baratay? Wiilkii waxa uu muujiyay aragtidiisa. Waxaan leenahay hal xayawaan, haddana waxa ay leeyihiin xoolo badan iyo madadaalo. Waxaan gudaha ku leenahay barkad lagu dabaasho, laakiin ayaga waxay ku dabaashaan webiga duhurkii. Waxaan soo gadanaa cuntada si aan u cunno, laakiin ayaga waa ay abuurtaan waa ayna cunaan. Waxaan rakibanay laambadaha saf si ah, iyagana waxa ay leeyihiin xidigaha dhaldhalaalaya habeenkii. Oodo dhaadheer ayaan gashanaa si aan isku ilaalino. Haddana waxa ay hubiyaan qof kasta inuu joogo. Aaladaha aad baan ugu dhaganahay, haddana iyaga gacmaha dadka ay jecel yihiin aad bay u qabtaan. Waxaan ku noolayn buurta raaxada ah, haddana waxa ay leeyihiin eebe oo bixiya si xad aan lahayn. Ninkii hadal ma dhihin, waqtigan oo dhan si khaldan ayuu u fahmayay. Wiilkii wuu sii waday hadalkii, aabba qaali, waan kuu mahadnaqayaa. Xoolaha waxa ay yihiin ma aanan ogeenin. Wiilkayga qaaliga ah, maya, waa adiga qofkii i baray. Waa ayaa nin cilmi badnaa waxa uu yiri, waaqi iyo xoolo badan ma ahan hantida saxda ah, laakiin kan ugu runsan hantida waa qalbiga oo ku xasilo raadinta jacaylka Ilaahay, Ilaaha qaadirka ah.